munaasabadan balaaran oo lagu xusayay maalinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 12 Abriil ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho goobta ay ka dhaceysay munaasabada ayaa waxay ciidamada xoogga dalka ay ku soo bandhigeen dhoolotus iyo gaarta ciyaar ay u riyaaqeen madaxdii ku sugnaa goobta waxaana munaasabada ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha wasiirka gaashaandhigga xubno ka kala socda labada aqal ee baarlamaanka beesha caalamka taliyaasha ciidanka cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa salaan sharaf waxay ka qaateen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inta kadib ayaa goobta lagu soo bandhigay heeso ka hadlaya gubinta ciidanka xoogga dalka oo ay halkaas ku soo bandhigeen kooxda fanaaniinta horseed ee ciidanka xoogga dalka munaasabadan lagu xusayay 57 sano guuridii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sanadkii 1960 ayaa waxaa madasha ka hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka Sarayaagaas Maxamed Jimcaale Cirfiid oo u hambaliyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ay maanta u tahay maalin ku weyn ciidanka asaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kaasoo la aasaasay 12 Abriil 1960 markii gobonimada aan haanay iyadoo lagu aasaasay ciidan dhibooho markaas la qoray iyo saraakiil laga soo wareejiyay ciidanka booliska ujeedada abuurista xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ahayd inuu hanto oo uu dhowro oo uu difaaco qarannimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed sidaas darteed maanta waxaan goobtaan u joognaa oo u wada fadhinaa inaan xusno 57 sano inay ka soo wareegtay waxaa sidoo kale goobta ka hadlay wasiirka gaashaandhigga Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo ka dalbaday ciidamada xoogga dalka inay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha ka jiro dalka fursad weyn oo ah waana ku hadlaya magacayga iyo magaca wadada Soomaaliyeed rabaa inaan halka uga hambalyeeyo ciidamada qalabka sida meel kasta oo soo yihiin dalka qaasatan ciidamada frontiga jooga oo dagaalka ku jira cadawga hortaagan hariga habeenba munaasabada tan loo suurtageliyay in sida quruxda badan maanta ay noogu hirgasho inaan u gudbinayo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hambalyadan waa aas-aas sanadguuradii aasaaskii ciidanka qalabka sida xoogga dalka Soomaaliyeed oo la aasaasay 1960 abdi dabadeer gurmadkii bahada lahaa ay ka geysatay dalka digoo ku badbaadinaya nafta ummadda Soomaaliyeed maantana ay hayso abaar la mid ah la idinka sugayo inaad wadooyin furtaan cadawga la dagaalantaan si aad u badbaadisaan nafta dadka jilicsan ee Soomaaliyeed dumar iyo caruur iyo waayeelba leh munaasabada lagu dabaaldegay aasaaskii ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa soo xiray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaana uu hambalyo u jeediyay ciidamada xoogga dalka waxaana uu sidoo kale uu sheegay in ay ururka al-shabaab 2 sano gudahood ay ku soo afjari doonaan waxa kale oo muhiim ah oo loo baahan yahay markii aan daryeelkii iyo agabkii ciidanka aan siino oo disciplinkii loo baahnaa ay keenaan waxay ku khasban yihiin sidii aan ku naqaanay ciidanka Soomaaliyeed oo geesiyaasha inay dagaalka galaan inay ka adkaadaan shabaab oo ay ka xoreeyaan dalkan ay ku celiyaan meesha ka yimaadeen waxa kale oo muhiim ah abaabul garab taageer oo aan u heysayno oo aan u gabyeenno oo aan caanaha iyo biyaha iyo raashinka aan ka daba wadno ciidan aan lahayn shacab ciidankaasi ma guulaysan karo ciidanku wuxuu ku guulaysan karaa markuu uu og yahay inuu haysto taageerada shacabkiisa iyo dowladdiisa annaga haddaan qaybteena la imaanno marka oo dhankii dowladnimada ah oo dhammaystiraysa waxaan wuxuu ciidanku u baahan yahay